fulinta howlaha harsan si loo xaqiijiyo adeeg hufan oo tayo leh oo bulshada loo fidiyo. madasha kulamada ah ee maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida ah ayaa waxa ka qabsoomay kulan ay wada yeesheen hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka dowlad deegaanka Soomaalida oo lagaga wada hadlayay xoojinta wada shaqaynta hay'adaha. kulankan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida, mas'uuliyiinta xafiiska cadaaladda, mas'uuliyiinta komishinka booliska asluubta, mas'uuliyiinta maxkamadda guud ee shareecada ayaa mid lagaga arinsanayay iskaashiga iyo xiriirka wada shaqaynada ka dhaxeeya hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka deegaanka si loo dardargeliyo adeegyada bulshada loo hayo. sida uu ku sheegay furitaanka kulankan kusimaha gudoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka Mudane Cabdikariin Axmed. saaka waxa sugu nimidnay shirkii caadiga ahaa ee hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka oo saako khamiisa nooga furmay hoolka shirarka madasha shirarka ee maxkamadda guud. shirkan oo shir caadi ah hay'aduhu isugu yimaadaan waxa laga hadlayaa inta badan sidii loo hagaajin lahaa adeeg bixinta bulshada loo hayo loona turxaan bixin lahaa arrimaha wada shaqaynta iyo shaqada ka soo baxa taasoo lagu wadaago fikrada iyo mar walba dhaliilaha dhinaca shacabka ama hay'adaha dhexdooda ka jira ee shaqada la xiriira. markaas saaka shirkaas noo furmay dhammaan hay'adihii ay khusaysan oo nagala soo qayb galeen oo ka soo qayb galeen maxkamadda shareecada, xafiiska cadaaladda, komishinka booliska iyo komishinka asluubta oo inta badan hay'adaha ay khusayso maareynta kiisaska ama dacwaduhu sida caadiga ay maraan. marka ujeedada shirka saaka noo furmay waa shirka hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka oo si caadi ah u qabsooma labadii weekba hal mar la isugu yimaado kaasoo kulay kula faguri doona arrimaha mar walba taagan ee la xiriira in la hagaajiyo adeegga bulshada ay hay'adahani u hayaan. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Faafan iyo gudoomiyaha